waxyaabaha bini'aadamka lagu imtixaano hadday noqon lahaayeen cudurro, hadday noqon lahaayeen dagaallo, hadday noqon lahaayeen abaar iyo macaluul, hadday noqon lahaayeen maaragtay waxyaabo kale. taasaan baalkeenay nidaamka HR-ka wax badan baan ka bedelay, biometric system baan u sameynay, diiwaangelin baan shaqaalaha u sameynay, waxaan u sameynay oo kale nidaamka sulsaarka oo attendance-ga iyo mataqaanaa lagu ilaalinayo Soomaaliya soo booqday maasha Allah. maanta waxaan nasiib u yeelanay inaan joogno magaalada Qardho. waxaan nasiib u yeelanay inaan joogno isbitaalka guud Qardho. waxaan nasiib u yeelanay maanta inaan hor fadhiisano agaasime Dr. Jaamac Cabdi Maxamuud oo agaasime isbitaalka Qardho. maalin wanaagsan Dr. Jaamac. maalin wanaagsan. jaamac aad u mahadsantahay maasha Allah. qofofkan markaan arko waxaan soo xasuustay sayniskii baan soo xasuustay markii aan isbitaalka ku jirnay waa ogaaday marka ugu horeysa marka waa maxay horta isbitaal. bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baan idin soo dhaweynaya STN TV. runtii waa ku mahadsantihiin inaad soo booqataan. waxaan kaloo idinka mahadcelinayaa shaqada baaxadda leh aad bulshada u haysaan. haddaan ka jawaabo su-aasha ah waa maxay isbitaal. isbitaal waa meel goob caafimaad oo lagu hayo ama lagu daryeelo bukaanada xanuunsan, isla markaasna lagu baaro cudurrada marka ay qabaan, isla markaa looga daaweeyo, isla markaana waxa weeye looga hortago cudurrada. sidoo kale wacyigelin joogto ah laga siiyo bulshada. waa haddana meel lagu soo saaro maaragtay jiilka mustaqbalka la wareegi doona caafimaadka. maasha Allah. marka isbitaal waa sidaa. waxaa kale haddii si kale loo dhigo isbitaal waxaa la dhihi karaa waa meel dhibaatooyinka bini'aadamka ku dhaca ay ku dambeeyaan, oo waxyaabaha bini'aadamka lagu imtixaano hadday noqon lahaayeen cudurro, hadday noqon lahaayeen dagaallo, hadday noqon lahaayeen abaar iyo macaluul, hadday noqon lahaayeen maaragtay waxyaabo kale oo bini'aadamka ku dhaca intaba isbitaalkay ku dambeeyaan. maasha Allah. ilaahay wuxuu leeyahay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi walthamaraat wabashiri saabiriin. marka haddii dagaal dhaco badanaa dhaawac isbitaalka ku dambeeya. haddii abaari dhacdo dadka macaluusha ay ku dhacdo isbitaalka yimaadaan. haddii dhimasho dhacdo dadka isbitaalka yimaadaan. marka wax kasta oo dhaca oo bini'aadamka ku dhaca oo dhibaato ah meesha ay ku dambeeyaan waa isbitaal la yiraahdo. maasha Allah. Dr. Jaamac xaaladda guud ee isbitaalka Qardho wax naga sii hadda maasha Allah. isbitaalkii waan soo wareegnay, waan soo aragnay bukaano badan baa jiifa, dad badan baa bareelo lagu waday maasha Allah. waa zaxmad. isbitaalka dad si u eegto wuxuu yahay isbitaal private ah markaad si u eegto macnaha bilicdii iyo quruxda ka muuqata. taas waxaan uga hambaleynayaa dadka Qardho maasha Allah. caasimadda isbitaalkeeda saa ma aha marka taa hambalyo waan idinleeyahay insha Allah tacaala. marka xaaladda guud ee isbitaalka baan rabaa inaad wax nooga sheegto iyo cidda aad taageerada ka heshaan agabka iyo dawooyinka. isbitaalka guud ee Qardho xaaladiisu aad iyo aad bay maaragtay kala degan tahay. ugu shaqeynaya isbitaalku 24 saac ugu shaqeeya. waa isbitaal heer gobol ah oo u adeega dhammaan gobollada Puntland looga yimaado, maadaama gobol Karkaar uu xuduud la leeyahay gobollada Bari, Gaardafuu, Highland, Sool iyo Sanaag iyo Nugaal. intaba dadka deegaanka jooga ay isbitaalka maaragtay adeeg ka helaan. marka waa isbitaal ay ku xiran yihiin dad badan ku xiran yihiin qaybo kala duwan ka kooban oo runtii waxyaha asaasiga ah isbitaalladu ay leeyihiin. marka xaaladiisu waa isbitaal shaqeynaya oo functionala oo runtii aan dhihi karno isbitaallada hadda Puntland ka jira kuwooda ugu horumarsan maasha Allah ayuu ku jiraa. hambalyo. cudurrada ugu macnaha badan oo dadka ay u yimaadaan maxaa ka mid ah? badanaa cudurrada kategoriyo markii loo qaybiyo maalan hadba deegaanka lagu jiro ayaa maaragtay ayaa saameyn ku leh cudurrada. marka badanaa cudurrada faafa baa ugu badan waxyaabaha isbitaalka la keeno. marka hadday noqon lahayd malaariyada, hadday noqon lahayd TB-da, hadday noqon lahayd HIV/AIDS-ka,
hadday noqon lahayd cudurrada tan hooyo dhalaan ku dhaca, hadday noqon lahayd cudurrada carruurta ku dhaca noocyadooda kala duwan, hadday noqon lahayd waxyaaba macluusha la xiriira, dhammaan cudurrada maaragtay yani la wada yaqaan ee commonka ah baa ugu badan waxyaabaha la keeno. cudurraduna waxay ku xiran yihiin xilliyada mararka qaarkood way ku xiran yihiin iyo marka xaaladda guud ee loo jiro. marka badanaa cudurrada hadda aan kuu sheegay waa ugu badan. waxaa dheeri ku ah waxyaabaha la xiriira maalan sumowga oo kale, gubashada, maaragtay sumowga wuxuu ka iman karaa wax qofku cabay ama maaragtay masqaniin waxyaabaha gargaarka degdega ah, shilalka iyo waxyaabaha la xiriira ama qof surrey lagu dhuftay ha ahaato ama ha noqoto qof shil baabur ku dhacay ama ha ahaato xabad lagu dhuftay ama waxay doonaan ha noqoto emergency gargaarka degdega waxyaabahaas oo dhan baa isbitaalka lagu qabtaa. wakaa doctor adigu marka lagu magacaabay agaasimaha isbitaalka shaqaaluhu imisuu ahaa, haddase shaqaaluhu waa imisa? emergency qaybta emergency gargaarka degdega ah ma goob furan baa 24 saac adeeg laga heli karo mise waqti cayiman buu furan yahay? runtii shaqaaluhu waa isbebedelaan waxayna ku xiran tahay maaragtay hadda mashaariicda sida ay joogaan, laakiin markaan isbitaalka imid ilaa 100 qof meelahaas baa joogtay. haddana ilaa 100 iyo xoogaa baa jooga, 130 meelahaas inta volunteerkaana maaragtay way jiraan. wakaa waxaan la soconaa cudurka coronavirus oo dunida aafeeyay qardo inay ka mid ahayd Puntland magaalooyinka aadka macnaha loogu hoobtay coronaviruskii. hadda maxaad is leedahay coronaviruskii waa dhamaaday oo ma jiro miyaad leedahay macnaha waa la dabar gooyay mise waa jiraan oo waad la kulantaan maalmo dhexdaas? qodobka kale dawooyin ma jiraan oo oxygen ama qalab dadka caawiya macnaha aad ugu tala gasheen hadduu coronavirus uu dib u soo cusboonays yimaado ilaahay naguma keeneen marka coronaviruska ma jiraa mise waa suuray? coronavirus wuu jiraa oo maaragtay wax dabar go-ay oo hadda lagu dhawaaqay inuu dabar go-ay maahan. sidii loogu dhawaaqay inuu safmareen yahay ayuu weli adduunka ugu jiraa, khatartiisii saameyntiisana waa uu leeyahay. dad badan oo calaamadihii leh oo yimaada isbitaalkana waa jiraan, laakiin sidii hore oo u faafayey iyo baqdintii hore oo dadka uu ku hayay aan jirin haddeer. ka isbitaal ahaan annaga xilliga ayadaa waxay noo xid xilli aad iyo aad runtii aan maaragtay yani xilli critical buu ahaa. qarada badan baa ku dhintay. waxyaabaha caqabadna nagu ahaana waxaa ka mid ahaa oxygenka oo markaas meel fog laga keeni jiray. waxaa xusid mudan meesha ugu dhow oo markaa oxygenka aan haamaha oxygenka ka dalbeynay inay ahayd Hargeysa, iyo markii dambe Burco oo laga furay oxygen laga furay. haanta keliya waxa weeye lacag qaali ayaa laga soo bixinaya iyo transportationkeeda. sidoo kalena maaragtay waqti dheer qofkii ma haynayso, mana awoodo qofku inuu sii wado maaragtay intaasoo haamad inuu bixiyo. arrintaas alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan kaga gudubnay inaan keennay warshadii oxygenka oo maaragtay loo qareemay wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland ay keentay, taasoo runtii baahi badan oo dhanka oxygenka dabooshay. waxaan kaloo aan baranay hababka looga hortegi karo iyo hababka loo daryeeli karo qofka marka coronavirus uu ku dhaco. guidelines-ki iyo strategy-giina weli waa mataqaana isbitaalka waan leenahay. xaruntiina weli waa furan tahay COVID-19-ka. marka alxamdulilah rabbil caalamiin waxa badan laga bartay, horumar badan waa laga gaaray in mataqaana wax laga qabto arrimaha noocaas ah. waxaa xusid mudan in qaybta coronaviruska ay tahay maaragtay sariirahan ay oxygenku uu ku rakiban yahay, qofku asagoo sariirtiisa jiifa uu oxygen ka qaadan karo. waa isbitaalka keliya oo leh arrinta iyada. maasha allah. agabka iyo dawooyinka yaa idinka taageera? ma dowladda shisheeye idinka taageerta mise idinkaa soo iibsada mise wasaaradda caafimaadka Puntland baa idinka taageerta agabka iyo dawooyinka isbitaalka? agabkii dawooyinka isbitaalka waxaa naga taageera dowladda Puntland oo naga taageerta wasaaradda caafimaadka. qaybaha kalena waxaa naga taageera hay'adaha naga taageera aanu bahwadaagta la nahay.
marka intaas waa la keenaa inkasta oo baahiyaha isbitaalka iyo community-ga u baahan yahay markasta aan la kabargarayn karin oo loo baahan yahay xal dheer oo mustaqbali ah in laga gaaro isku filaanshaha xarumaha caafimaadka marka agabka dowladdu way naga taageerdhaa hay-aduhuna way naga taageeraan annaguna waa soo iibsan ka isbitaal ahaan laakiin weli baahidii way taagan tahay mana ku filla doctor imisaad adigu hadirtaan maamulka isbitaalka agaasima ka ahayd doctor jaamaco almost 2 sano wax ku dhow 2 sano agaasimaha isbitaalka guud sanad iyo waxaan maleynayaa 8 bilood sanad 8 bilood maxaa la taaban karo aad isbedel ku samaysay isbitaalka marka tan iyo waagaatay waxyaabo badan baan isbitaalka ka bedelnay xilliga aan nimid ugu horeyso kow inaan kor u qaadno agabka caafimaadka marka la adeegsan karo waxaa xusid mudan inaan rakibnay maxaa la yidhahdaa fa maalan raajo digital x-ray ah oo raajooyinka adduunka ugu casrisan ka mid ah oo waaxda raajada aan kusoo kordhinay waxaa ka mid ah inaanu agab badan oo caafimaad oo qaybaha shaybaarka iyo maxaa la yidhahdaa qaybaha saalada qaliinka intaba aan kusoo kordhinay midda labaad oo aan isbitaal kusoo kordhinay waxaa weeye in aan kor u qaadno tayada shaqaalaha oo aqoontooda iyo xirfadooda in kor loo qaado oo la badiyo maaragtay waxaa la yidhaha capacity buildingka maaragtay in dadkii tababar loo sameeyo xirfadooda ay yaqaanaan shaqadooda ay garanayaan isla markaasna ay ku shaqeyn karaan cilmi ku shaqeyn karaan jahli ku shaqeyn karaan marka waxyaabahaasaan baalkeenay nidaamka HR-ka wax badan baan ka bedelay biometric system baan u sameynay diiwaangelin baan shaqaalaha u sameynay waxaan u sameynay oo kale nidaamka sulsaarka oo attendance-ga iyo mataqaanaa lagu ilaalinayo waxaan kaloo kor u qaadnay qaybta data information health management data information system inaan isbitaalka u sameyno oo bukaanka yimaada isbitaalka 10 sano kadib hadduu yimaadana daatadiisa in la heli karo database system la isticmaalo waxyaabaha kale oo aan kusoo kordhinay waxaa ka mid ah maxaa la yidhahdaa inaanu kor u qaadnay cilmiga wax la yidhaahdo iyo researchka oo arday badan aanu isbitaalka ku tababarno meelo kala duwanna ka yimaada si loo helo maxaa la yidhahdaa jiil mataqaanaa berrin bedela caafimaadka bedela oo deegaanka Qardho iyo guud ahaan Karkaar iyo dadka Soomaaliyeed ay heli karaan dad tababaran oo berri kamaan la wareega caafimaadkooda waxyaabaha kale oo aan qabanay waxaa ka mid ah aan kor u qaadno bilicda isbitaalka oo markii hore maaragtay dadku ay dib ku qabeen inay isu socodka bukaanka oo dib ku ahaa kadibna waxaan dhignay interlock waxaan sameynay beero maxaa la yidhahdaa nadaafadda iyo mataqaanaa environment-ga caafimaadka ayaan kor u qaadnay waxyaabaha kale oo aan qabanay waxaa ka mid ah isbitaalka inaan u sameynay waxa la yidhahdaa organogram oo ah in maamul daadijin aan isbitaalka u sameyno madax qaybeedyo sameyno maamulku inuu daadegsan yahay maxaa la yidhahdaa qaybihii kala duwanaana ay shaqeynayaan waxyaabaha kale oo maxaa la yidhahdaa aan kor u qaadno waxaa ka mid ah in aan isku daynay in bukaanada isbitaalka imaanaya aan dhakhaatiirta u kordhino si dadku u helaan adeeg ay u baahan yihiin waxaa xusid mudan inaan 4 dhakhtar ugu yimid isbitaalka haddana ay ka shaqeynayaan ilaa in ka badan 10 dhakhtar ay ka shaqeynayaan qaybaha lafaha maxaa la yidhahdaa iyo cudurrada indhaha oo kale inaan kusoo kordhinay qaybta COVID-19 inaan kusoo kordhinay waxyaabahaas oo dhan aan kusoo kordhinay kolleyba waa dadaalayna wax badan oo noo mataqaanaa naga dhiman oo maxaa la yidhahdaa aan rabno inaan geegsanana way jiraan okay doctor jaamac aad u mahadsan tahay waxaa jira isbitaalada gaarka loo leeyahay qaarkood puntland ku yaal runtii marka bukaan la geeyo waxaad moodaa macnaha in qaarkood lagu barbaranayo ama saa dhakhaatiir joogin sidoo ay halsku galayso had maalinahaas waxaa la kulmay gabar tiri dhiiggayga o plus ahaa baa waxaa lagu shubay bay tiri dhiig kale ab plus waa bararay bay marka aqoontaas dhakhtarka ku soo xulataan
see kusoo xulataan mana jiraan macnaha dhib idinkaga soo gaara dhaqaatiir aad keenteen mise qofka cilmigeeda imtixaan baad ka qaadaan shahaadooyinkiisa fiirisaan inkastoo shahaado meel walba laga soo fiirin karo yaa idiin soo gudbiyo idiin soo sheegaraya qofka inuu yahay dhaktar saxa lagu aamini karo bukaanka